4 sano kadib waxaa magaalada Muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho markii uu ka soo degay ayaa waxaa soo dhaweyntiisa qayb ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya isugu jiray xildhibaano saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin kale iyo mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabtay dalka siyaasiyiin aqoon-yahano waxgarad iyo dadweyne aad u fara badan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku soo dhaxlugeeyay boqolaal dadweynaha oo safnaa hareeraha wadooyinka waxana uu gacan qaaday qaar ka mid ah dadweynahaasi waxana ay wateen boorar iyo fanaanado ay ku dhaganaayeen sawiradiisa soo dhaweynta Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa sidoo kale qayb ka ahaa kooxda barbaarta gaashaaman oo halkaasi ku soo bandhigay suugaan ay ku muujinayeen sida ay ula dhacsan yihiin in markale dalka uu dib ugu soo laabto guriga uu ka degay magaalada Muqdisho albaabkiisa hore ayaa waxa uu kula hadlay boqolaal dadweyne ah oo halkaasi isugu soo baxay waa mahadsantihiin soo dhaweynta guddiga qabanqaabada ciidamada amniga bulshada qaybaheeda kala duwan ee u soo baxday soo dhaweynta aad iyo aad u mahadsantihiin farxad weyn ay inta maanta inaan idinla joogo oo dib u soo laabto dhowr sano kadib waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtiga aad bixiseen waraxda iyo boorka iyo socodka aad iyo aad ugu mahadsantihiin maadaama waqti badan la taagnaay mar raba inaad ku dheereeyo warku waa noo dambeeya waa isla joognaa insha Allah marka waa mahadsantihiin dhinaca kale madaxweynihii hore dawladii ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa saxaafadda hadal kooban siiyay kaasi oo ku aadanaa 4 sano kadib dalka dib ugu soo laabtay soo dhaweynta iyo qabanqaabada wanaagsan oo sameeyeen intaas kadib aad ugu faraxsanahay inaan soo laabto mar kale 4 sano kadib inaan ku soo laabto dalka aad ugu faraxsanahay dadka ka qayb qaatay soo dhaweyntana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo dul qaatay waraxda iyo boorka iyo waqtiga dheer sugitaanka aad iyo aad u mahadsantihiin intaas kadib waxaan u maleynaa inaan ku ballanno warkeena inaan dib u dhigano oo aanan iska boobboobin marka waa mahadsantihiin ballanka laan yeelo doonaa insha Allah oo wixii jira aan ka hadli doono marka waa mahadsantihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay amaro ka soo saartay in la soo dhaweeyo mas'uuliyiintii hore xilalka uga soo qabtay dalka ee doonaya inay u tartamaan xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadka 2016 Maxamed Muuse Maxamed Bulsha TV Muqdisho.